بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونكسن داود ديال كسر دواء برنامج كني حقي حقيقة SSTV يجيك كيبل برنامج كان وحن كجاه اللي دونا ما كويجي دونا شلي كورنكي قلها وسير كذا حكومة فدرال كالصومالية مركي وقبصومي وقبصومي آلد فجان أرجع زومكا وحا laga soo saaray go'aamo kala duwan go'aanka ugu muhiimsan waxa uu ahaa arrimaha doorashooyinka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo saxaafadda u akhriyay go'aankaasi waxa uu sheegay in arrimaha doorashooyinka la ansixiyay in aan hal maalin lagu darin isla markaasina doorashadu xilligii loogu talagalay ay ku qabsoonto xoogga iyo joodiga ugu badanna lagu bixiyo sidii ay u qabsoomi lahayd doorasho la isla ogol yahay oo dalka ka dhacda waxa uu sheegay arrimaha doorashooyinka in dib loo dhigay inay tahay musiibo oo aysan ahayn oo ay tahay wax aan loo baahnayn si walba yahaataba dhuusamareeb waxa iyadana la filayaa inuu shirka dhaco dad badan waxay u arkaan go'aanka golaha wasiiradu ay soo saareen inuu hordegay wixii laga filayay shirka dhuusamareeb in laga hadlo sidoo kale markii uu go'aanka xukuumaddu soo baxay muddo yar kadib waxa isla markiiba jawaab degdeg ah ka soo bixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan eegi doonaa qaabka uga jawaabay in kasta oo qaar badan oo idin ka mid ah ogtihiin haddana waxaan falanqeyn doonaa bal qaabka madaxweynuhu u jawaabay iyo qaabka ra'iisul wasaaruhu uu go'aanka u soo saaray sidoo kale saameynta go'aanadaasi ay ku yeelan doonaan shirka dhuusamareeb ayaynu eegi doonaa waxaa ila jooga wariye Barreil Kacse oo aad uga barateen inuu barnaamijkeenan xog iyo xaqiiqo inoogu falanqeeyo arrimaha kala duwan ee aan markaas ku soo qaadan ilkacsow soo dhawow jumco wanaagsan bal hadda ka waran go'aankii xukuumaddu ay soo saartay iyo kii ay filla Soomaaliya soo saartay mar wada ma santa barnaamijkana saddex qodob ugu muhiimsan saddex qaybood mid waa shirka dhuusamareeb mid waa baaqi ka soo baxay ama hadalkii ka soo baxay golaha wasiirada oo uu shalay shir gudoomiye ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr midna waa baaqi ka soo baxay villa Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu horeyn horta waxaan ku horeynaynaa marka hore shirkii dhuusamareeb ugu furmayay maamul goboleedyada shirkaasi oo waxa weeye magaaladaasi dhuusamareeb ee xarunta galmudug ka furmayay oo uu martigeliyay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdikaari Qorqor horta waxay ahayd 9kii bishan inuu furmo maanta waa bish waa 10 dib uu u dhacay shalay maanta lagu wada inuu furmo haddana maanta mar kale ayuu dib u dhacay dawladda marka waxaan la wadaagaynaa sababta keentay inuu dib u dhaco horta shalay iyada waan ogeyn oo sababta keentay waxay ahayd shalay waxaa timaaday wufuudi ugu badnayd maadaama daraad madaxweynaha Hirshabeelle uu tagay shalay saddex madaxweyne maamul goboleed baa tagay oo koonfur galbeed ugu horeeyay madaxweynaha Puntland uu ku xigay madaxweynaha Jubbaland uu ku xigay sadaraad shalay maadaama xilli dambe ay tageen macquul ma ahayn in waxa weeye uu shirkaasi uu dhaco xalay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor wuxuu hooyga ay magaalada ka degan yihiin mid ugu booqday dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo wufuudi la socotay oo shalay qaybihii ugu dambeeyay ugu cuslaa ay tageen oo dhammaantood macnaha uu hadallo maartay soo dhaweynaha iyo kaftan iyo sheeko dhaxmartay maadaama magaaladu marka culays fara badan ay dareemayso oo wufuud badan ama aad u culus ay joogto oo isugu jira madaxda maamul goboleedyada iyo maartay xubnaha ee baarlamaanka labada aqal iyo wasiirro ka kala socda ee dhamaanba maamul goboleedyada Soomaaliya madaxweynaha Qorqor wuxuu aad moodaa in uu qaadanayo kaalin firfircoon oo aad u qurux badan oo odaytinimo aha oo madaxda maamul goboleedyada u muujinayo waji furnaan soo dhaweyn walaaltinimo iyo maartay odaytinimo xal marka isagoo oo inta muujinaya doonayna maartay in bilad sharaf uu ku maartay lagu siiyo kulanka hadda uu martigeliyay iyo dhamaanba madaxda maamul goboleedyada iyo wufuudi la socotay mid hoyga ay magaalada dhuusamareeb ka degan ugu booqday amniga magaalada aad baa loo adkeeyay aad bayna magaalada u xasiloon tahay dadka magaalada degan ee dhamaanba shacabka Soomaaliyeed intooda badan waxay ka dhunsugayaan shirkaas iyo wixii ka soo bixi doona shirka maanta waxa la rabay maadaama shalay uu dib u dhacay maanta inuu furmo oo bisha waxa weeye Luulyo ama July ay 10 tahay laakiin mar kale ayuu dib u dhacay ujeedka ugu muhiimsan ee maanta shirku uu dib ugu dhacay waxa lagu sheegay inuu yahay in madaxdu ay iska nastaan
maadaama intoodii badnayd shalay ay xilli dambe oo galabkii hagaareen in maanta la iska nasto maanta jumco ay tahay oo jumco ay maantana tahay maalin inta badan Soomaalida waa maalin cibaado waa maalin nasasho weey inkastoo aysan jirin masaajid inta badan la isugu tagayo haddana waa maalin nasasho oo Soomaalida waxay u tahay maalin feesta way dhici kartaa marka maanta marka madaxweynaha galmudug qada sharaf buu u sameeyay madaxda maamul goboleedyada maanta marka waxoogaa sheeko wadaag iyo kaftan iyo maaragtay waxoogaa sheekooyin caadi iyo isbarasho ya maanta dhacaysa marka maadaama maanta ay maalin feesta iska tahay iska fasaxa berri marka oo sabtiya taariikhduna ku beegan tahay 11 bisha luulyo yaa lagu wadaa shirku in si rasmi ah u furmo oo looga wada hadlo intiisa ugu muhiimsan marxaladda kala guurka ee dalka uu marayo doorashooyinka dalka ka dhici doona maadaama xilli doorasho lagu jiro khilaafyadan iyo maaragtay kalsooni darrada hoos u dhacday u dhaxaysa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo sidii bal sida dalka hadda uu yahay looga gudbi lahaa oo jawi xasilooni maaragtay midnimo is afgarad iyo maaragtay horumar loo gaari lahaa marka shirku berri buu furmi doonaa dhuuso mareeb jawigeeduna waa degan yahay maantana kaftan iyo sheeko wadaag iyo qada sharafta madaxweynaha galmudug uu sameynaya madaxda ayaa jirta xaalkuna aad buu u qurux badan yahay shacabka Soomaaliyeed dhamaantood waxay ka rajaynayaan shirkaas inuu ka soo baxo wax wanaagsan oo dalka iyo dadkaba dan u ah qodobka xiga xageen aadayna waxaan aadaynaa marhayaa golaha wasiirada horta maalin walba khamiis ah waxa dhacay shir golaha wasiirada kan golaha wasiirada federaalka kaliya ma aha kan maamul goboleedyadana maalinta khamiista ayuu dhacaa inta badan waxaa looga wada hadlaa toddobaadkiiba maalin baa la kulmaa marxaladaha maaragtay uu dalku marayo xilliyadaasi waxyaabaha taagan ee caqabadaha oo maamulada oo maaragtay dowladda federaalka hor yaalla maadaama xukuumaddu inta badan waxay uu fulin yahay oo iyadu maaragtay looga baahan yahay wixii shaqo ahaa in ay fuliso oo ay qabato muhiim way mar walba inay waxa isbuuci mar la kulmo wixii la qabtay laga wada hadlo waxyaabaha soo socda laga wada hadlo iyo maaragtay sidii shaqada loogu sameyn lahaa refreshment ama maaragtay loo dadgelin lahaa sadaraad kulankii golaha wasiirada shalay ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu hogaaminaya Xasan Cali Khayre waxa ugu muhiimsan looga wada hadlay ra'iisul wasaaraha xitaa muuqaalkiisa iyo hadalkii uu ka hadlay iyo warbaahinta inta soo qaatay waxay ahayd arrimaha doorashooyinka markii uu ka hadlayay ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in muddo kordhin horta waxa la dhaho ay horseedo qalalaaso amni mid siyaasadeed iyo mid dastuurba sadaraad loo baahan yahay doorashadu in ay waqtigeedii ku dhacdo ma ahan markii ugu horeysay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shirka golaha wasiirada uu hadalkan oo kale ka hor yimaado waa dhaweeyay waan ogeyn bil ka hor baa baan filayaa markii uu yiri doorashadu waa inay xilligeeda ku dhacdaa dalkan wuxuu ku soo caanamaalay in 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo sadaraad waxa loo baahan yahay golaha wasiirada dhamaantood maadaama fulintii ay yihiin oo shaqooyinka ugu badan ay qabanayaan in xilligaas laga bilaabo ay ka wada shaqeeyaan sidii doorasho dalka ay uga qabsoomeen mucaaradka ayaa aad waagaas u soo dhaweeyay waxaana markaas ay u arkayeen maadaama madaxweynaha dhankiisa laga waayay inuu dhaho doorashada xilligeeda ku qabsamaysa hadalka ra'iisul wasaaraha inuu ahaa hadal iyaga baaqiyadoodii ayidaya sadaraad marka ra'iisul wasaaraha inta badan waxay kula talinayeen in ficil uu hadalkaas u bedelo marka hadalkii ra'iisul wasaaraha shalay hadalhayn fara badan ayuu dhaliyay aad baa loo hadalhayay baraha bulshada dadka qaar baa u arkay xitaa ra'iisul wasaaruhu hadalladan inuu uga leeyahay inuu yahay nin musharax oo xilka madaxweynaha madaxtinimada Soomaaliya u taagan farmaajada jaraafudhi kulli dad badan baa waagii hore waxa la lahaa waxay sameyn doonaan madaxda hadda dalka ka arrimisa xisbi weyn oo nabadii nolol dhaho iyaga ay waxa weey u dhan yihiin oo madaxda hadda dhamaantood ay qayb ka yihiin haddana hadalka ra'iisul wasaaraha markii la fiiriyo waxyaabo badan baa laga dhansan karaa dad baa u arka inuu musharax yahay dad baa u arka inuu madmadow iyo khilaaf uu ka dhex jiro kulli taana waan fiirin doonaa laakiin hadalkii ra'iisul wasaaraha shalay wuxuu noqday mid waxyaabo badan ifiyay mucaaradkuna ay u arkaan inuu yahay guul mucaaradka labada ruux ee hadda ay aadka u wataan ee aysan weerar ku qaadin markii dowladda federaalka la fiiriyo waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi ay u arkaan iyagu inay dalka u heelinayaan oo wixii lagu muransanaa ama muddo kordhinaha ama doorasho dib inay dhacdo ahayd iyagu inay ka soo horjeedaan taa bedelkeedana ay doonayaan doorashada in xilligeedii ay ku qabsanto marka hadalkii ra'iisul wasaaraha wuxuu noqday mid dadka ay aad u hadlayeen oo ay falanqeynayeen wariyaal fara badan ay soo qorayeen oo ay doorashadu waa inay xilligeedii ku qabsantaa wax muddo kordhin laha oo ku salaysan afkaar dad kale
lama aqbalayo doorashadu waa inay xilligeedu ku qabsoontaa waa inaan loo diyaar garoobaa hadda laga bilaabo waxa weeye shaqada doorashada loo gelahana waa in la bilaabaa marka aad bay marka mucaaradka aad moodaa markii ay waxa weeye aad fiiriso hawshan in iyaga ay hawlaha noocaas oo kale tahay iyo hadallada nooca oo kale tahay wasaaraha ka soo baxaya in waxa weeye ay soo dhaweynayaan marka loo eego marar badan oo ay waswaas ka qabeen muddo kordhin inay dhacdo ama doorasho aan loo dhanayn dalka ka dhacdo oo ayagu mar walba ay codsanayeen doorashada in xilligeeda lagu qabto ay noqoto mid isqancin iyo wada hadal iyo isu tanaasul iyo maaragtay heshiis ku salaysan intaas markaan hadalka ra'iisul wasaaraha ugu gudubno nuurow markii باقي قولها وزيرada hadalka wasaaraha soo baxay isla markiiba waxa waraaq ordaysa ka soo dhacday dhanka villa Soomaaliya dhanka villa Soomaaliya warqada ka soo dhacday horta hadalkii ra'iisul wasaaraha erayadiisa eraya kamid soo qaatay oo ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo dhaweeyay kulankii golaha wasiirada iyo baaqi ka soo baxay ee ahaa in doorashada xilligeedii ay ku dhacdo wuxuu sidoo kale warqada madaxweynaha xafiiskiisa ka soo baxay lagu sheegay in muddo kordhintu ay horseedo qalaase amni iyo mid dastuur iyo mid siyaasadeed saddex loo baahan yahay doorashadu inay noqoto mid isqancin iyo wada hadal ku dhacdo iyo heshiis inay noqoto mid dastuurka waafaqsan mar walbana awoodda loo dhaweeyo shacabka bilmacna marka hore doorashadu mid dadbana baarlamaaniya ahayd laakiin hadda loo yar dhaweeyay wali marka waxay moodaa inay ku dhagan yihiin qof iyo cod inay ku dhagan yihiin oo ay ka dhaqmayso siiqooyinka kale waa intii ra'iisul wasaaraha marka laba arrimood dhowr arrimood markii la fiiriyo marka horta mid la fiiriyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in ay dadaan wixii khilaaf ah u dhaxeeya oo shacabka laga qariyo oo laga hortago hadaladii waxyaabihii hore u jiri jiray ama dhaqankii ra'iisul madaxweynaha iskhilaafsan ahaa waxa moodaa inay ka siman yihiin oo aad u dadayaan inuu waxa iyaga u dhaxeeya ee maartay kala afkaar duwanaanshaha inuu soo baxo aad bay waxa way u diidayeen laakiin si guud markii loo fiiriyo waxaan moodaa in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha aysan isku fikir ahayn oo waxoogaa madow iyo mugdi u dhaxeeya tusaalayaasha qaarkood waxaa ka mid ahaa hadda habeen hore markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu bila saraf tashiinayay guddigii iyagu soo qaban qaabiyay maalmihii xorriyadda oo maareeye iyo ay waxa weeye Khadiija ugu magac dheeraan iyo Khadiija wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha Ra'iisul Xasan Cali Khayre oo dhabanka haysta oo waxa weeye aad u fikiraya iyadoo waliba mid kamid ah golihiisa wasiirada bila sharaf loo xirayo yaa ka soo muuqday sawirka meesha marka waxaad moodaa marka awal hore markii wax kasta la qabanayo inta badan waxa arki jiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo isgarab fadhiya oo faraxsan oo qosla arki jiray hadda waxa moodaa hawshu in isbedeshay oo waxa weeye nin walba uu wax u wado marka body language badan ba meesha laga akhrisan karo macnaha waxa la yiraahdaa waxa jira la dhaho sign language macnaha inaad qofka gacmaha saa dhaho waxana body language la dhaho qofka muuqaalkiisa hab muuqaalkiisa laga akhrisanaya qofkan waxa weeye dareenkiisa inuu faraxsan yahay iyo inuu maartay qof wax tabanayo uu murugaysan yahay ra'iisul wasaaraha marka body language-kiisa waxa laga akhrisan karaa in uu xoogaa uusan ku qanacsanayn habka uu wax socdo inuu waxa weeye uu ku faraxsanayn soo wax socdo waxoogaa mugdi iyo maartay khilaafa in uu jiro waan ogeynaa ra'iisul wasaaraha hadda maalmihii xorriyadda xitaa lama ogeyn xitaa xilli uu baxay asagoo qadar joogo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi la kulmay baa la arkay oo warbaahinta qaar ay soo qoraysay afar bari kadib ra'iisul wasaarihii iyadoo dadka qaarkood ay ku kaftamayeen in ra'iisul wasaare la afduubay oo xagga maartay loo waxeeyey cabdi xaashina de waan ogeynaa muusa kasoo qaybgalinba maalmihii warqadda madaxweynaha marka dhowr arrimood bay iftiiminaysaa kow madaxweynuhu laba arrimood buu arkay oo culays ah isagoo markii hore culays ka saaraa dhanka madaxda maamul goboleedyada kulmaya iyo muddo kordhin haddii dhoo sida uga soo horjeesan doonaan iyo doorashada qaabka ama waxa warmurtiyeedka ka soo saari doonaan markii hore la murugeysnaa oo ku fikirayay bal iyaga intaysan hadlin ka hor tallaabadu qaadi lahaa iyo wuxuu soo saari lahaa yaa mar kale waxaa holac ku shiday oo baasiin sii geliya hawsha Xasan Cali Khayre iyo goliga wasiirada oo muddo kordhin diida doorashada waa in la qabtaa oo noqotaa mid heshiis lagu yahay bay dhahan saadaraad marka isaga oo taa iyo tanba raba madaxweynuhu in uu waxa weeye uu ka hoos guuro ama uu golaha madaxda gobolada wixii ka soo bixi lahaana isaga inuuba horey u sii waxeeyo oo uu horey uga sii qaataba go'aan tan golaha wasiirada maadaama culays tahay uu waxa weeye dadka u toosiyay inuu ku raacsan yahay buu warqadan soo saaray marka waa tii waaye tusaalaha ugu wanaagsan dadka aan wax ku fahansin karo waxa weeye cabdi xaashi marsa waraaq ma soo saaray
oo muusan dhihin khilaafka waa in la xaliyaa ama goboleedyada madaxda dowladda federaalka waa in isu yimaadaan kadib maxaa dhacay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inkastoo uusan wax badan dhaqan gelin haddana soo muusan tallaabo qaadin oo muusan madaxda ama goboleedyada oo qaarkood aysan isu dhaweyn oo uusan aqoonsanayn intuu zoom soo gelin hadalkii cadda xash u aqoonsaday muusan zoom soo gelin oo shir kale muusan isu wada yeerin oo lama wada hadlin oo waxoogaa isfaham meesha muu imaanin oo karkarkii siyaasadeed iyo wixii jira maysan waxoogaa yar qaboobin mar kale macnaha si uu uga hortago wax ka soo bixi doona madaxda maamul goboleedyada hadalkan waxa weeye golaha wasiirada uusan culays uga noqon iyo warqadan soo saaray marka hadda wixii aad looga sugayay golaha muxuu maamul goboleedyada halka ku kulmaya ama madaxda maamul goboleed wixii ka soo bixi lahaa ee dadku ay xiiseynayeen waa doorashada iyo culayska wax ugu badan wuxuu ahaa doorashadu ahaa doorashadina waa laga wada hadlay xasan alqarib muddo kordhin ma jiro waa in xilligeeda lagu qabta doorashada madaxweynuhu wuxuu muddo kordhin waa inaysan noqonin waa in xilligeedii lagu qabta doorashada ay noqotaa mid isqancin iyo wada hadal iyo heshiis lagu wadaya saa daraaddeed madaxda maamul goboleedyada wixii ugu muhiimsanaa ay ka hadlahaan laga dhirsugayay xiisihiisa hadda halkaasuu ku dhammaaday si kastaba laakiin kulliba waan ogaan doonaa cabdiraxmaan cabdishakuur horta hadalka madaxweynaha buu aad u naqdiyey markaa fiirso nimanka mucaaradka inta badan madaxweynaha ayay la dagaashan yihiin ra-iisul wasaare lama dagaashano horta ra-iisul wasaaruhu inta badan isagu waxa weeye horta waa nin shaqada la keenay oo de nin la doortay ma ahayn oo madaxweynaha keenay inta badan isaga marka waxaa moodaa mucaaradka wixii dhaliilaha iyo wixii weerare ay qaadayaan si guud marka loo fiiriyo dowladda way wada dhaliilaan laakiin si gaara marka loo fiiriyo madaxweynaha iyo inta badan weerarka ugu badan oo ku socdaa marka hadalka marka waxa weeye baaqi ama warqadii ka soo baxday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo isagu waxa weeye ku tilmaamay mid board isku qarin ah oo waxa weeye aan suuragal bahayn marka inta badan xubnaha mucaaradka waxay weerar ku qadan madaxweynaha way inta badan ra'iisul wasaaraha markii la fiiriyo iyagu dagaal kuma ahan siyaasadiisana waxoogaa waxa moodaa dhowr arrimood markii la fiiriyo inay ku taageersan qaab waxa kamid ahaa bayaanka ka soo baxay filla Soomaaliya ee kii golaha wasiirada laga daba keenay waa riwaayad soo saaraheedu farsamo xiyay wuxuu leeyahay halka soo maray nurow hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur ee ku aadan in riwaayadda soo saaraha maartay soo saaraha uu farsamo xuma ay ahayd warqadda ka soo baxday filla Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo ee ku saabsanayd inuu ku ayiday oo uu ku taageeray baaqi golaha wasiirada wuxuu ku macneeyay waqtiga uu haysto madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo oo ah waqti aad u kooban sidoo kalena uusan u jeedinba in uu isu keeno waxa weeye saamiradii siyaasadda oo wali aan heshiis lagu ahayn doorashada nooca ay noqonaysa iyo qaabkay dhan kale tan uu leeyahay madaxweynihii doorashada waa inay noqotaa mid isqancin iyo wada hadal iyo heshiis ku dhacday inuu yahay iyo muddo kordhinta ayadana waxyaabaha muddooyinka u dambeeyay soo baxaya oo inta badan mucaaradku ay walwalka iyo walaaca ka qabeen marka la fiiriyo marka sida madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo uusan wali boqolkiiba diyaar ugu ahayn inuu saamiladii siyaasadda uu isugu wada yeero oo looga wada hadlo waqtiga uu haystay doorashada lagu qabanayo waqti aad u yar ah muddo kordhinta oo mar walba ayagu ay ka cabanayeen madaxda mucaaradka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyagana isaga wali qaarkood kala taagan oo uusan wax heshiisa dhaxmarin marka waxyaabo noocaas oo kala farabadan marka la eego baad moodaa inaysan suuragal ahayn hadda in waxa weeye warqadda madaxweynaha iyo hadalka uu ku hadlay iyo sida uu waxyahay inay yihiin waxa weeye waxaan isqabanayn oo kaafiye kala dheeriya hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur marka isagu taasoo aad baa mahadsan waayahay ilka xasow ugu dambeyn dhawaan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliima Yaray bayaan bay horgeysay golaha shacabka golaha baarlamaanka aqalka shacabka golaha shacabka bayaanka horgeysay wuxuu qeexayay laba nooc doorasho bas in maaragtay waddanka laga qaban karo mid waa midda maaragtay ay tiri 9 bilood bay u baahan tahay aad iyo aad oo maaragtay maalinta la isdiiwaan gelinay waa tii 49 milyan ay ku baxay midna waa middan ay tiri maaragtay 70 milyan baa ku baxayso waxay noqonaysaa muddo 13 bilood hal sano iyo wax oo muddo kordhin macnaha dadban u ekay labadaa nooc bay soo bandhigtay aad iyo aad go-aanka shalay ka soo baxay filla Soomaaliya iyo maaragtay filla Hargeysa xukuumaddii ay soo kala saareen madaxtooyadu ay soo kala saareen
go-aankii Xaliimo Yari ama baaqi Xaliimo Yari ay baarlamaanka la jiray maxay u dhimi kartaa ma dhaawici kartaa ma la sodhan kartaa way soo afjartay bal ka warraad halkaas horta mucaaradku iyagu inta badan waxay u arkayeen Xaliimo Yari waxay ku hadashay inuu ahaa afkii dawladda waliba kii madaxweynaha inuu ku hadashay oo kuwa qaarkood ay hadda lahaayeen waxa ka dhaxlay oo madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo Xaliimo Yari mucaaradka iyagu marka saas ay u arkayeen marka la eego marka qaabka uu wax yahay nooca doorasho ama labada nooc doorasho soo bandhigtay Xaliimo Yari iyo baaqiyadan waqtiga loo baahan yahay baaqiyadan ka soo baxay horta waxa la isku waafaqsan yahay oo si guud isku waafaqsan yahay waxa kamid ah in dalka hadda uu yeesho sharci doorasho oo dhameystiran dalka inuu yeesho oo loo isku wada raacsan yahay yaa waxa weeye la isku wada raacsan yahay la isku taageersan yahay ama la isku waafaqsan yahay laakiin xilliga lagu jiro iyo marxalad dalka uu marayo doorashada dhacaysa nooca ay noqonayso iyo sidii looga wada hadal loogu heshiin lahaa weeyaan waxa la isku haysto ee mucaaradka iyo dawladda inta badan isku haystaan gaar ahaan mucaaradka inta badan ay ku dhalinayaan madaxweynaha inuu soo bandhigi lahayahay si guudna uu ula hadli lahayahay saamilada siyaasadeed si looga wada xaalad doorashada iyo nooca ay noqonayso marka baaqiyadan iyo sida la isku waafajin karo marka aad fiiriso xaalad say tahay waa un heshiis waxa weeye guud oo dhexmara saamilada siyaasadeed oo maarta madaxdii mucaaradka oo ay ugu horeeyaan nimankii madaxdii hore ee dawladda madaxda xisbiyada qaran ku midaysan maamul goboleedyadii in laga wada hadlo doorashadan oo la isku afkarto nooca ay noqonayso waxaa la qaban karaa doorasho dadban iyada oo laga duulayo nooca hadda labada nooc doorasho soo bandhigtay ha noqdaan doorasho waxa weeye sharci doorasho dalku uu leeyahay sida uu qabo ha noqoto laakiin in noqoto nooc waxa weeye doorasho dadban oo baarlamaanka iyaga waxa weeye taa shaqo ku leh oo iyaga waxa weeye soo saaraya baarlamaanka laakiin hadda marka la fiiriyo kan ka soo baxaya baaqan hadda ka soo baxay golaha wasiiradu soo ma dhaawacayo wixii baarlamaanka hor yaal wuu dhaawacaya wixii baarlamaanka hor yaal wuu dhaawacaya iyaguna baarlamaanka waxa looga fadhiyay inay ansixiyaan taa daraadeed wali hadda ma ansixin karaan oo wali waa la isku dhigay madaxda gobolada ku xagga fadhiya ra'iisul wasaarihi iyo goli wasiirada waa ku hadalka soo saaraya madaxweynuhu waa kii waxan soo saaraya marka laakiin qoraalka madaxweynaha marka la fiiriyo waxa laga dhadhansanayaa in sharciga Xaliimo Yari uu madaxweynuhu wali ku dhagan yahay marka uu leeyahay waa in awoodda loo sii dhaweeyaa shacabka macnaha waxa weeye dadka inay waxa weeye ugu yaraan qayb kamid ah shacabka maadaama la wada codeyn karin waa inay codeeyaan marka si guud marka loo fiiriyo waxoogaa marka wali kala aragti duwanaantu way jirtaa oo xitaa dawladda u dhaxaysa mucaaradkii maamul goboleedyada warkooda iyaga iska dhaafo meel cad bay ka taagan yihiin haddana wixii ka soo baxaan eegi doona laakiin waxa ugu horeeya ama ugu muhiimsan waxa weeye in la sameeyo kulan guud oo isku yimaadaan dawladda federaalka iyo mucaaradkii dhammaan saamiladii siyaasadda madaxda maamul goboleedyada in laga wada hadlo xilli ama muddo yar waan haysanaa doorashadan waxa weeye waxay u baahan tahay waqti iyo dhaqaale u baahan tahay qaabkeen ku qaban karaa doorashadii inagoo u wada dhan oo heshiisku ah sadaradeed in laga soo saaro warmurtiyeed ay dhamaantaas ku waraacsan yihiin haddii noqoto in bilooyin lagu doorasho lagu qabto iyo in la dhaho waqtigeeda waan ku qaban karaa dawladda iyo mucaaradkana ka wada shaqeeyaan aad baad mahadsantahay halkaas soo waayahay daawadayaal halkaasaan ku joojinaynaa barnaamijkaasi aan kaga hadlaynay shirkii maanta la rabay inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ee u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada iyo waliba baaqi shalay ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo waliba midkii ka dambeeyay ee ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaan ku joojino barnaamijka oo inoo falanqeynaya barnaamijka casatan iyo kulan dambe waxaanu idin leenahay guul iyo gobonnimo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh